farxad weyn bay tahay inaan maanta ku soo beegmo iyadoo ay maanta tahay maalintii booliska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland run ahaana haddii aan isku sheegno maalintani sida ay u weyn tahay waxay tahay inaan isxasuusino kaalinta uu bulshada kaga jiro ciidanka booliska waxaa xasuusnaataan booliska waxaa la waxa u qaybsamaan laba qaybood qayb waa qayb qofka ku dhex jirta oo u kala saaraysa wixii qaldan iyo wixii saxsan damiirka hagaya ee qofka wixii xun u diidaya wixii sanna u tilmaamaya ayaa internal police la yiraahdaa ka damiirkaasi uu qaban waayo saxday ka damiirkaasi uu qaban waayo ayaa loo sameeyay inay booliskaasi aan arkayna in maanta aan xusaynay ay wax ka qabtaan saalogtihiin boolisku waa meesha ugu horeysa ee aad soo gaarayso haddii lagu dhaawaco haddii lagu xado haddii lagu dilo iyo haddaad wuxuu tirsanayso meesha aad ku soo horeynaysa ee u soo dacwo tagayso weey sidaas lamid ah waa kuwa had iyo habeen u taagan sidii wax uga qaban lahaayeen wax kasta oo dadka dhibaya naftooda iyo maalkooda iyo damiirkooda oo muxaadaraadkaas ay ka mid yihiin sidaa darteed waxaan munaasabadan weyn maanta uga faa'iideysanayaa inaan bulshada ku baraarujiyo in ay gartaan xaqa ay booliska ku leeyihiin dadkaasi maanta booliska ama ciidankayna ay xaqiiqatan ma qaataan hanti weyn oo ay ku shaqaynayaan ma jirto waxaan qabaa inay yihiin dad ilaahay damiirkooga meel fiican gaadhsiiyey oo u taagan inay qarankooga iyo dadkooga ay u shaqeeyaan oo ka ilaaliyaan naf iyo maalba wixii dhibaya sidaa darteed inaad idinkuna xushmaysaan haddaad tahay bulshadii inaad ku garab joogsataan marka ay maxay xilalkooda ama waajibaadkooda markay gudanayaan inaad ku garab siisaan inaad u tilmaantaan oo caawisaan haddii ay daba joogaan waxyaalaha muqaadaraadka aad iyo aad baan aan u ogahay xaqiiqatan ixtiraam fara badan iyo aqoonsina waan u hayaa booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland meeshaan ku arkana runtii ma dhaafo Allah idin barakeeyo idinkii qoysaskiinaba xilka adaysaana insha Allah ta'ala wadankeenu aqoonsi buu heli doona waxaana noqon doontaan insha Allah ta'ala dadka kuwa ugu sharafta badan aad baan idin salaamaya wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh